gordhow qof isku soo xiray babooyinka qarxa ayaa halkan oo ah meel aan ka fogeyn isgooska daljirka Dahsoon isla markaana ka tirsan degmada Boondheere waxa uu ku bartilmaameedsaday gaari ay saarnaayeen agaasimaha Radio Muqdisho Cabdicasiis Afrika iyo sidoo kale agaasimaha telefishinka qaranka Sharmaarke iyo qof saddexaad oo la socday kadib markii ay ka soo baxeen maqaaxi halkan aan ka fogeyn dad goob joogayaal oo Allah hadalay waxa ay noo sheegeen in halkan uu ka soo baxay gaariga ay saarnaayeen agaasimaha telefishinka qaranka iyo sidoo kale agaasimaha Radio Muqdisho iyo qofka saddexaad oo la socday halkan ay ka soo baxeen markay halkan ka soo baxeen kadibna waxa naloo xaqiijiyay iyagoo halkan maraya in qofkii ku xirnaa babooyinka uu gaariga qabsaday isla markaana sidaas uu ku qarxay waxa la xaqiijiyay in uu geeriyooday Allah u naxariistay agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicasiis Afrika iyo sidoo kale waxa uu dhaawac halis ah soo gaaray agaasimaha telefishinka qaranka Sharmaarke qof goob jooga oo la hadalay gordhow ayaa nooga warbixiyay sida ay halkan wax uga dhaceen waxaan goob joog ahaa ama dhacdadii naxdinta lahayd ee halkan ka dhacday hotel makhaayaddan oo lagu caweeyo oo dhalinyar ahaan ku caweynaynay isla waqtigaasina aan ku casheynay ayaa waxa hal mar isbedelay jawiga iyadoo mataqaanay waqtigaasi uu nala joogay oo dhalinyar wariyaal uu Cabdicasiis Allah u naxariista kamid ahaa baabuurkiisuna guduhu ku jiray isla markii waxa dhacday in gaarigii isagoo aan goobta ku wada casheynayno inuu soo baxay oo gaarigiisa kaliya hotelka ku jiray markii uu naga soo baxay maqaayada ayaa isla markiiba waxa isbedelay jawiga dhamaantay dhulkaan ku daadanay isla daqiiqad ka bacdi markii aan banaanka u soo baxnayna waxaan aragnay xaqiiqatan wax laga naxo oo ah baabuurkii gudaha nagula jiray in uu mataqaanay halkaas uu ku qarxay ilaa iyo hadda sida shacabku ay noo sheegeen oo dadkii markaan anagu meesha aan u soo baxnay ma noo cadeeynin waayo qarax wuxuu ka dhacay banaanka anaguna gudaha ku jirnay waxna loo sheegay inuu qof uu dhibaatadaas geystay laakiin mataqaanaa xaqiiqatan wax ka dhalinyar ahaan aad calooshayada noo xanuuntay weeyaan aad baan uga xunnahay Allah u naxariisto basaarinta laga aragtay dhimashay dhaawac والله walaalkayow runtii anigu waan argagaxnay anagoo dhalinyaraan meesha ku casheynay naxdintii iyo shoorkiina qabsaday waan kala yaacnay telefoonadii meel baan kaga tagnay meeshii aan ku casheynay indhahaygu kaliya waxay qabaneen markii aan soo baxay marxuum Cabdicasiis iyo nin kale oo la socdo Abwaan Barrow lagu sheegay labadan nin baa mataqaanay dhaawac ahaan lagu qaaday markii dambana Allah u naxariisto miidiyahan ka arkay isagoo Cabdicasiis loo taxsiinayo aad baan uga xumahay Allah u naxariisto aad baan uga xunahay haddaan dhalinyar ahaanahay salaam tan iyo bishii Febraayo kadib markii uu dalka galay qalalaaso waxa kordhay weerarada ismiidaaminta ah ee adeegsanayaan kooxda Al-Shabaab Maxamed Ibrahim Bulbul Universal TV Muqdisho